wadani maxay kula tahay halka Soomaaliya afari nusafadaan waradna midnimada Soomaaliya waa muqaddas adna maxay kula tahay no waranagu horanu goone aqoonsi baan doonayna adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye waradna maxay kula tahay dawlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe federaal ina adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an warbal dadkan eega oo xageen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane oo duceeyay allay leedahay xafaayada konfi baby iyo caanaha konfi laak sidaanay ilmuhu uga qosliyaan war antaan dudu haytan jeedan boorsa tira badana ma intaan roora haytan jeedan war caawa garowe ka shidan tahay hanugu mashquulin boowe caleema saarkii madaxweynaha Puntland 26 January waa maalintii madaxweynihii hore Maxamed Siyaad Barre oo caasimadda Muqdisho ka baxay marka carar iyo caleema saar maxaa isku keenay war maalintii bye bye oo yirsama war waa maalintii balaayo hoodi idin tiri oo dardaarankii madaxweynaha aad diideen oo xabadaha naga daayay beerihi nafasha u idin lahaa war waa maalintii abwana bacad la yiri Allah u naxariistee allahu yaa inoo diga markaan duqa ku yaacaynay kadibna uu yiri duqi doona ducana ugu dara waana dilateen baa uu yiri hoo darbuuxa xoola wowduudan idina dulmiyaad waadeen darbuuxa xoola wowduudan idina dulmiyaad waadeen haye war 26 January waxa la caleema saaray waa madaxweynaha Puntland Dani war garowe madaxda isku tagtay mucaarad iyo maxafadba waa loo digay waxa la yiri meesha waa caleema saar rag badan oo ciil isu qabaana way isugu imaanayaan wixii xagxagashaha waqtiga la ka dhigteen baago dadka ma tagaaya nin walba calooshiisa walax u gaar ah ka dhex guuxaya war antii ololada ku fadhiya afkahi buko leeray afka musku furdaana may war meesha ku cadira ma Cabdi Shakuur tagay qodbadii oo soo diyaarsaday markii la joojiyana wuxuu yiri dan iyo wadaan kaashikii gabi ahaan taay gacan saar farmaajiyo waxbaan ku tuumaynaaye aydan diyaarsaday ninkii joojiya tahay aryaadaha ma Axmed Madoobe tagay waliba ilaaladiis yaa la socota wuxuu na yiri aaga iscaleema saarkii ka weyn ee gasheekadu ulki ila dagaalaan arkiyo xaasidiin badane waa tii awowgay lagu gubaa inaanan yeelayn war wiliga ha yeelin nabad in hol waa ku sugaysaa war af Soomaaliga ma gordaasoo ninka ku dheelay fad ama hafadin waa lagu fadsin yaleere war madaxweyne xaf hadii madaxda kala diyaarada ku tageen isagoo suuq saaran ciidankiisa uu tagi yaa in la xiramiyo ka cabsaday adoogu udurkii caleema saarkii lafta garan usan gabaagadiya wili ku uqdadeysanya war adinka uqdadeysan naga dhageysta warka wuxuu yiri wiilashanu dalkii bay qaseen oo qalqaliyeen taladii qarbay kala dhaceen quusna waan nahay qaraab dibadda noogama ogola namana quudsha warnimaya war ma haysaane garowe waxa tagay madaxweynihii hore Sheekh Shariif Sheekh Axmed waxaana lagu yaqaan mucaarad xilligiisa sugta ka horna aan waxba xagan wuxuuna yiri sheeg iyo xal lama rabo hadaan lees xushmaynayne isxagasho lagu gaari waa xir cadaalad ah xaakimkii la doortaa haboon inaan xaq dhowrnaahay horaan waxa loo yiri liwaad isqoon bisata u moodin war ma ahane waa arqoy aqoon gaab dawac uleeka war madaxweynuhu hore Xasan Sheekh asna meesha waa tagay wuxuuna yiri hawl iga qabya haydan oo si dhameystiraya afisyoona nimankii codkii leega wada siiyay bilaash xaytayaal bay noqdeen gabi ahaantoodi maxay aniga dabaday tareen ha iska faaneen 28 sano kadib waa markii uu horeysay ee ay hana qaado dawladnimo rasmi ah war ma haysaane madaxweyne farmaajo waa waxa qodbadiisa la wada sugayo xafladan asaga soo gabagabeynayo isaguna wuxuu yiri dad waa kala aqaanaahe codkarnimo rag sheegtaa jiraan muranka daynayne siyaasigii xanaaqsanina waa naaf laga daynay waa in meesha laga joojiyaa hadaladoodii waraada maamul goboleedka kale waa sheegteen madaxweyne lafta gareen iyo madaxweyne waare urjifooyadii ku gowracan miya waysa meesha ka hadleen lafta gareen hadal wiilashib ma arna ma aray onaga awjay ma kabaal hadala sheegna abduduwa corona ogaada waari waarana wuxuu yiri ilma yahu dawladnimo la'aanteed la loolaamaaye muruka laga deeyaha libaka la doortay war madaxweynaha la caleema saarayo Dani isagu muxuu yiri warnaga aamus wiil arooskiisa kama boodeen warnaga ta goorma xishoodu dambeysay gabdha arooskoodii ka booday baba la arkay wiil maxaad ka sheegaysaa warnimo maanta garow waxaan ku arkay dhaqamo aan ku arki jiray shabaab iyo ahlu sunna wala caleema saarka ma ka qayb galeen warkayga dhaxgelinaysu oo laba qurac oo kala joogay matabaan iyo beledweyne u dhaxaysa qolana quraca kontaroolka waxay saari jirtay tusbaxyada qolana waxay saari jirtay indha shareerada
markaasaa waxaa samaysmay laba qurac oo midna indha shareer la ciirayo midna tusbax hadda ayraboorka garoowe boor iyo calan aan la aqoon buu la ciiraya war naga tag al-shabaabku dadka tusbaxyada waa laqsii jireen aryaa waa kuwa soddonkaa kuway dadka liqsii jireen kuwa kunka ma ummadu dhunxi kartaa war tusbaxa ra-iisul wasaare doctor shaakir waa 2000 cid laqi kartana ma jirto aryaakaas biyo lagu liqaanba in la saaray warnimadan waxaan la yaabay wadaadkii sheekheeyaw ahaa oo waxaan arkay maqaayado dadka badarka u geegeynayo marka cafi walaalkaa la iska ogaayey ma walaalkaa cunto u geey oo haddana keenay war muslimka waa u qidmeeyaa diintuuna ka hela sheekhu war shiikhu waa isku sawiraye khidma kama ahayn yaa maydaa ajir lehee taasu hadday ajir leedaha nabad iyo nololaa ku barwaaqoobi laheeda nimayo saas ma aha shaqaa sharafe shaxaada ceebee la yidhi war ma haysaana maanta ra'iisul wasaare khayre magaaladu dhex lugaynaya magaalada tiyaatarkuu yimid asagoo lugaynaya kadib maktabaduu lugu tegey haddana madxafka qarankuu lugu tegey arninkuu geesisanayey ma jenaraal daa'uud cabdulla xirsiba war ho nabad jirto rugni la sheegaw ra'iisul wasaaraha suuqa hoolaha dhex lugoeyey waa kaye madisaaqow waa shirqool taasiya ma kursigiisaa danu kaa haysaa warnimada walaan ku farxaan maqla nimankii inta gabadha faraxumeeye guriceel filinka ka duubaya faafiyey waa la soo qabqabtaa lay dhammaantood laakiin qabasho keliya xal maahane waxaa xalku ku jiraa nimankaa in la toogto lagana ilaalsho odayaal yidhaahda xaal iyo xumaynaan kala qaadannay waryaa dadku xaar buu leeyahay ma 4 nin baa gabar nool loo tooganaya aahey koofii subugle bariidkaa baadlah la gali maaha war maxkamadda doctor shaakir arrintan waxay ka qabato ayaa lagu ogaanaya waxay tahay eebaago anigu wax kaloo la yaabaan maqlay taalibaan iyo maraykanka shiraha qatar uga furmaa la yidhi wadahadal raayaana u socdaa la yidhi heshiisayna gaari rabaanaa la yidhi aryaadhaha anigu waa yaabanahee minii taalibaan iyo maraykan heshiinayaan shabaab inay ununka nala heshiiyaan xay ku diideen mase maraykanka iyo inuu la heshiiyo rabaan widaayey warka eedaan kasi mukulaal doolihii la heliiday war anaa waraan la yaaba maqlay amiir sacuudiyaane ayaa masar tagoo qaahiro qamaar ka qayb galay 300 milyan ayaa 6 saacadood gudahood looga helay 9 xaas oo uu qabana 5 ayaa laga helay waraa diinta ree aala sacuud 9 naagood miyaa lagu qabaa mayano abow xariifkan haajadiis gaar waaye waa adeegatooy waayeno war 9 naagood biilkoodu bixi waaye way iska kala yareynay aryaa madaxweyne farmaajo shacab badanaa garowga ku soo dhoweeyaa la yidhi juuqna uma dhihin war la hadlayaa war ma ogida iska aamus sidii guduufaay dhigo dadka adili kartaa duf ku baxmo dhagaatiya riixa wiilka Itoobiya ma saga xukuumadda geeska Afrika abaarta ka baxe